السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن waxaan rabaa inaan halkan wax yar oo arinta badda ah aan idin kala share gareeyo bacdama asxaab aynu nahay wax walbana inaan isla share gareyno waa muhiim arinta badda Soomaaliya la isku haystay Soomaaliya iyo Kenya dispute-ka ama muranka uu kaga dhaxeeyay ayaa maaragtay la xukmiyay sida la socotaan maanta sida loo xukmiyayna ma ahayn sida Soomaaliya ay rabtay ama ma aysan ahayn sida Kenya ay rabtay maxkamadda si labada wadan sida ay rabeen si ka duwan ayay wax u xukmisay hase yeeshee waa la kala badiyay oo wadan ayaa loo badiyay wadanka kalena waa laga yareeyay sidaad ogsoontihiinba 300 wada saddex ay ahayd programka oo dhan oo mile ayaa maaragtay lagu murunsanaa arinkaasi marka Kenya si bay rabtay in barnaamijka xariiqinta xuduudda loo sameeyo hase yeeshee Soomaaliyana si kale ayay rabtay in xariiqinta xuduudda loo sameeyo wixii oo dhan ma dhicin maxkamadda waxay xukuntay 333 Soomaaliya ay rabtay in la siiyo waxa maaragtay Kenya laga siiyay 12 mile ayaa la siiyay Kenya inta soo hartayna Soomaaliya ayaa la siiyay guud ahaan 333.333 ayay ahayd Soomaaliya saas awgeed saddex la isku dardaray 12 kamid ah ayaa waxa la siiyay Kenya inta soo hartayna Soomaaliya ayaa la siiyay marka sidii Kenya rabtay miya ma ahan sida Soomaaliya ay rabtay miya ma ahan Soomaaliya siday rabtayna ma ahayn Kenya siday rabtayna ma aha marka waxaa la sameeyay xuduud cusub oo lagu magacaabo ama la dhahay adjustment line la sameeyay ama adjusted line ayaa la sameeyay oo maxkamadda ay sameysay mana aha sida Soomaaliya ay rabtay mana aha sida Kenya ay rabtay hase yeeshee Kenya waxaa la siiyay 12 mile laakiin su'aasha isweydiinta mudan ay meesha ku jirta waxay tahay waxa loo doodayay biyo ma ahan badna ma ahan waxa loo doodayay gaaska iyo macdanta meesha ay ku jireen iyo oilka meesha uu ku jiray gas iyo oila meesha ku jiray so waxa marka aan la ogeyn ilaa hadda oo qubrada Soomaaliya ama qubrada caalamka inay xaqiijiyaan looga baahan yahay waxay tahay Kenya 12 mile la siiyay imisa ceel ayay ka heshay Soomaaliya inta la siiyay imisa ceel ayay ka heshay waayo ceelal badan oo gas iyo saliid ah ayaa meesha ku yaalay so hadii tusaale ahaan ceelalka wadareed ay ahaayeen aan ilaahno 7 ceel ayay ahaayeen 7da ceel 4 kamid ah haday Kenya ay hesho anaga dan uguma jirto Soomaaliya dan uguma jirto so waxyaabaha la rabo marka in la ogaado laga fikiro ayaa waxaas ah ilaa hadda la macda laakiin maxkamadda maanta waxay xukuntay in 12 mile la siiyo Kenya inta soo hartayna Soomaaliya ay qaadato taasoo aysan ahayn wixii Soomaaliya ay raadinaysay taasoo also aysan ahayn wixii Kenya ay raadinaysay laakiin lama hubo ceelasha meesha ku yaalay halka ay raaceen badankoodii iyo cidda ay raaceen gabi ahaantoodii iyo cid wax weysay lama hubo taasi marka waxa looga baahan yahay qubarada caalamka in ay arinkaasi wax ka sheegaan ama kuwa Soomaaliyaba in ay arinkaas soo xaqiijiyaan ayaa wanaagsan okay sidoo kale Soomaaliya waxay raadinaysay magdhow in la siiyo bacdama dhulkaasi ama baddaasi in badan Kenya ay wax ka sameynaysay Soomaaliya magdhowkii maxkamaddu way u diiday oo lama siinin Kenya way guuldareysatay Kenya hore waxay u sheegtay in go'aanka maxkamadda ay gaari doonto maanta aysan aqoonsanaan doonin oo aysan maartay marnaba aqoonsan doonin ayay sheegtay sidoo kalena Kenya waxay sheegtay in go'aanka kamid ahaanshaha maxkamadda dacwadaha adduunka ICJ loo yaqaano inay ka bixi doonto so intaas ayaan rabay inaan idin la share gareeyo intaan dib dambe u kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh I love you guys